ayaa ku qarxay gudaha xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. In ka badan 15 qof ayaa ku dhintay mashaqadan, waxaana ku dhaawacmay 18 qof. dadka dhintay waxaa ku jira ciidamo iyo howlwadeeno ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. burbur xoogan ayaa soo gaaray dhismaha degmada oo ka kooban xafiisyo, howl xafladaha lagu qabto iyo garoon lagu ciyaaro kubadda cagta. afayeenka wasaaradda amniga ayaa saxaafadda kula hadlay gudaha xarunta degmada Wadajir. dadkii meeshaas ku dhintay waxaan ugu tacsiyeenayaa anoo ku hadlaayo wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya. waxaan leeyahay samari imaan dadkii ehelka ay ka tageen, samari Allah naga siiyo. kuwii ku dhaawacmayna gacan ka darno dhaalimada dishay ama wax gaarsiisay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku rajaynaynaa Ilaahay inuu caafiyo. waxaa lagu jiraa 10kii dambe Ramadaan oo khayrka iyo wanaaga badnaa. kuwii ku dhintay waxaan rajaynaynaa inay yihiin shuhado markay waayeen shabaab meelaha inaga soo galaan aan xirnay oo ciidankeena uu taagan yahay in degmadii shacabka loogu adeegayo oo aan la xiri karin inay soo beegsadeen ku beegsadeen shacabka Soomaaliyeed. waxa waaye 12 ruux oo shacab dhimatay, 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intay saraakiisha iyo ogeysiisay. insha Allah ta'ala wixii ka soo cusboonaadana gadaalaan ka soo sheegi doona hadii Ilaahay raali. xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan, waana qaraxii labaad oo isbuuc gudihiisa ka dhaca Muqdisho kaasoo mas'uuliyadiisu ay sheegtaan xarakada al-shabaab. Aweys Maxamuud Jilco, RTN, Muqdisho.